waad ku mahadsantihiin akhyaarteena quruxda badan ee nagala socda Dayra News. Haddaba waxaan ku soo gudbinayaa calaamadaha lagu garto in ninku noqon doono midka ku fiican kulanka sariirta marba sariirta maqashay. Dadku ma rabaan inay qirtaan balse kulanka sariirta waa mid muhiim u ah xiriir kasta ka hor intaadan xitaa kulan labaad oo haasaawo ah aadan la yeelanin ninka waxaad la yaabaysaa oo aad isweydiinaysaa haddii uu ninku uu noqon doono mid ku wanaagsan sariirta waana la ogyahay taas qofna ma rabo jawi xun inuu ku galo sariirta amaba qaabilaad xun si aad u ogaato haddii ninka aad arkayso ama aad la socoto uu noqon doono mid ku wanaagsan sariirta. Haddaba wax ka ogow waxyaabaha laga eego oo isha lagu hayo. Jir ahaan waa mid wanaagsan. Hagaag kulanka sariirta waa dhaqdhaqaaqa jirka oo u baahan xoogaa adkaysi ah. Haddii uu yahay ninka mid aanan jir ahaan u wanaagsanayn, kulanka sariirta wuxuu ku dhammaan karaa caajis. Sidoo kale lama dhihi karo dhammaan ragga jir dhismeedkoodu wanaagsan yahay waxay ku wanaagsan yihiin sariirta. Waxaa macquul ah inaad aragto nin maalin kasta jirdhis sameeya balse weli aan lahayn awood dhanka galmada ah. Qaabka ninka uu u dhaqmo guud ahaan ayaa ka garan kartaa waxa uu yahay waxa uu ku yahay sariirta. Haddii uu yahay nin waqtigiisa qaata waa astaan wanaagsan. Ma rabtid nin aanan waqti u haynin raaxada ka horeysa kulanka weyn ee haweenka badankood waa kuwo jecel ragga kulanka culus ka hor mariya raaxo islamarkaana aanan degdegin. Ma yahay nooca markaste ku yimaada ama ku weydiiya siday xaaladaada tahay iyo inuu ogaado haddii aad qadaysay habeenkaaga haddii uu ahaa mid wanaagsan. Taasi waxay muujinaysaa inuu yahay nin kalgacayl leh oo isla sidaasi ku samayn kara sariirta. Ninka noocaas ah kama fekero farxadiisa iyo qanacsanaantiisa keliya balse wuu rabaa inuu hubiyo in adigana sidoo kale aad raaxaysatay. Haddii uusan ku dhagaysan karin markaad hadlayso ama aad wax ka doonayso waxay u badan tahay in uusan ku dhagaysan doonin sariirta. Lamaanaha si wanaagsan wax u dhagaysta waa mid muhiimada siin doona waxaad dhahdo inta lagu guda jiro kulanka sariirta sababtoo ah wuu og yahay inay muhiim tahay. Haddii aad tiraahdo ha joojin wuu og yahay inay taasi dhab kaa tahay balse haddii aad tiraahdo jooji waxaa macquul ah inuusan xitaa joojinin. Sidaasi darteed inaad faham badan aad ka haysato kulanka sariirta waa mid ragga aad iyo aad muhiim ugu ah. Ismaqalka isdhagaysiga waxaa ka wanaagsan kana qurux badan dareenka aad dareemaysid inay islaantaadu ama xaaskaaga ay tahay mid ku qanacday kulankaas. Balse haddii ay wax u dhiman yihiin loo baahan yahay in aad dareemi karto. Haddii aadan dareemi karin taasi ugu dambeyn waxay keeni doontaa in ay si dabacsan ay wax kuu fahansiiso walow aysan ku dhihi doonin waxaan u baahanahay galma dheeri ah ama raaxa dheeri ah. Sidaasi darteed mar walba inuu attention-kaada taagnaadaa ama adigaba aad xaadir u ahaataa indhaheeda, jirkeeda, qalbigeeda iyo waxa ay tabanaysaba aad ogaan kartaa in ay baahidaasi soo afjarantay. Haddii aadan dareemin wax badan waxaa macquul ah in hawshaasi aysan ahayn mid dhammaystiran. Ugu dambeynna ay keeni karto in dood badani halkaas ka timaado amaba wadooyin kale oo dheerdheer oo aanan munaasab ahayn ay kuu soo marto adigu laftirkaaga ee ah xaajigeeda. Ogow wax walbo gabadhaasi ay samayso sababteed inaad adiga leedahay
waayo dareenkaaga iyo qalbigaaga iyo attentionkaaga intaba ma aadan wada siinin. haddaba ka taxadar oo ka feejignow in ay mawduuc ka baxsan mawduuciina ay gabadha samayso